general examination of the patent, the vital signs. calaamadaha nolosha aadamiga guud ahaan waxay ka kooban yihiin 4 xaraf oo muhiim ah waxayna kala yihiin macnaha waxyaalaha dadka lagu cabiro heerkulkooda iyo qaabkooda iyo caafimaadkooda heerkoo maraayo waa saddexda macnaha 4 xaraf ay kusoo koobmaan macnaha 4 xaraf ay ka wada bilowdaan kow T temperature, B blood pressure, blood pressure, C pulse or heart beat, R respiration. heerkulka waa calaamada muujisa xaaladda kulka jirka aadamiga ujeedaduna waxay tahay si loo ogaado inuu kacay iyo inuu degan yahay heerkulka qofka sidoo kale heerkulka waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah centigrade C iyo Fahrenheit F. macnaha 2 qaybood 2 nooc oo loo qaybiyo temperature-ka midna waa kana oo waxaa ku qoran baalka xalahay saan u kacaa marka kor u kacaa waxaan ku sheegay lambarku joogo lambarada geesaha ku qoran yihiin meeshuu gaar kana ku gaar kana lambarka intuu ku soo qoraa marka qafsaan loo saaro gale intuu ku soo qoraa lambarka marka kana casrisan asrisan waqtiga la cabiro heerkulka qofka kow marka uu si kadis ah u kaco ama uu dego heerkulka qofka marka uu qofku dareemo caafimaad daro guud marka qofku la siiyo daawooyin sida talaalada marka qofka ay ka soo casaato xumad macnaha markuu iskadan qofka dhan oo noqdo qof iskadan nooc kala soo guduutay iskadan indhaha guduuteen jirkiisa dhiig soo gal markuu yahay ala wada macnaha casaato macnaha guduudato dadka qaar waxaa waaye casaan ma yaqaanin guduuday u yaqaanin okay meelaha laga cabiro heerkulka afka ka mida khaasatan carabka hoostiisa waxaana lagu hayaa waqti ka kooban 3 ilaa 5 daqiiqo qodobka xiga kilkisha
hoosteeda waxaana lagu hayaa muddo 5 daqiiqo ah. Kilkasha hoosteedana waa laga cabiraa cadaadiska temperature, macnaha qofka cadaadiskiisa heerkulkiisa intuu gaarsiin kuleelka jirkiisa. Sideedaba kuleelka jirka wuxuu la socdaa dareemaha qofka bini'aadanka. Qofka dareemihiisa noocuu yahay lagu ogaadaa heerkulkiisa lagu ogaadaa. Markuu heerkulkiisa kacsan yahay qofkaas dareenkiisa wuu kacsan yahay, waxaana jiro xaalad khatar ah. Markuu kuleelka jirkiisa uu degan yahay dareenkiisuna uu degan yahay, mana jirto wax khatar ah. Qodobka 3, ilmaha waxaa laga cabiraa unuska ama dabada, waxaana lagu hayaa muddo 5 ilaa 7 daqiiqo. iyadana ay ka mid tahay meelaha temperature-ka qofka bini'aadanka laga baaro. qaybta dambena way ka mid tahay. Haweenka waxaa laga cabiraa vagina, waxaana lagu hayaa muddo 7 daqiiqo lagu hayaa. Dumarkana waxaa laga cabiraa xubinta taranka. Haddaba heerka iyadana way ka mid tahay heerkulka meesha laga cabiro. Teeda kale dumarka waa u gaar, macnaha ragga la mid ma ahan oo ragga la dhihi maayo meeshaas laga cabiraa. Teeda kale dumarka meeshaas heerkulkoodana waa laga ogaan karaa, macnaha inuu infection iyo xanuun iyo wuxuu jiro waa laga ogaan karaa. meelaha heerkulka qofka bini'aadanka ama dareenka oo dumarka oo ka kaco ay ka mid tahay. Haddaba heerkulka marka uu sareeyo wuxuu gaaraa 40 ilaa 42 second. macnaha marka saan loo saaraba oo qofka heerkulkiisa sareeyo 40 koo jara 42 inuu gaaraa suurtagal ah. waxaana loo yaqaanaa hyperthermia. marka uu hooseeya wuxuu gaaraa 35 ilaa 36 ilaa 37. markuu qofku miyirkiisa degan yahay lambaradan ayuu joogaa qofka heerkulkiisa. 38 second waxaana loo yaqaanaa hypothermia. heerkulka marka uu sareeyo wuxuu gaaraa 40 ilaa 42 second oo kula mid ah 104 f ilaa 106 f ilaa 108 f. marka uu hooseeyana wuxuu gaaraa 35 ilaa 39 second kula mid ah Fahrenheit 94 f 96 f 98 f iyo 100 f. blood pressure-ka cashirkeena intaasuu ku egyahay. blood pressure insha Allah waxaan qaadan doonaa casharadana soo xiga. cashirkeena ku xiguu noqon doonaa cashirkan. marka cashirkan qofkii fahmay wuu mahadsan yahay, qofkii aan fahminna commentiga noogu soo qoro, asaga xataa wuu mahadsan yahay. marka commentiga noogu soo qoro waxyaalaha u fahmin. cashirkan qofkii fahmay like ha noo saaro,
macnaha waa ka helay ka dhigan tahay casharkeenna waxaan qiimeynaynaa dadka inay fahmaan iyo in kale casharradan soo dhigno dadka nagu cusub subscribe-ka noo saaraano hadday cashar ka helaana like ka saaraano hana share gareeyaan dadkii hore noola joogay iyo dadka hadda noola joogana waxaan ka codsanaynaa inay noo share gareeyaan si uu u gaaro dad badan oo u baahan casharadan oo kale inay ka faa'iidaystaan mahadsanidin